السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لها قالي كوسو دواء channel كنا أبو بكر صديق أكاديمي أو كوجو عاونيس إن هيجاد صفة كبرتين قرآن كريم كإن كل أخرسين فلنا هذا نقول سوتاي سبسكرايب channel قبل كنا فرص يادو أنا كده مخالل بنسوق لينه هذا نلجأ وجرتنا فلنا شير جري مخال كسي ولا لها كل وقوف فايدستان إن شاء الله مخال كنا ما توحكوا قادن دونا شرح منهج كعصب هنجادة شرح منهج كعصب هنجادة وأنا منهج كالتطبيق في تعليم القواعد القراءة والكتابة منهج كتطبيق باريستا هنجادة إن شاء الله نمحلها شرح كواد أن قادرنا مانتا شرح كواد نحكو قادن دونا مستوى الأول أن قادرنا إن شاء الله مستوى الأول كان وحاواي مرحلة ما قبل القراءة والكتابة مرحلة ما قبل القراءة والكتابة سيدا هراء أوصو شيء منهج كوحوككو بيهي أفرتن كتاب أيوككو بيهي أفرتن كتاب أيوككو بيهي ومحلها يعني سلسلة النون والقلم محلها الجزء الأول الجزء الثاني الجزء يعني محلها يعني محلها يعني ثالث أي محلها أوككو بيهي وأنا مستواها كواد مستواها اللوات مستواها يعني محلها سدحات مستواها أفراد أي محلها منهجك ومحلها يعني أوككو بيهي وأنا سلسلة متكاملة ومحلها دمسترن وإن شاء الله أنا أقول قالني إن محلها يعني محلها إن هجادة لو برو المها إن شاء الله مركمانتنا إن شاء الله وحن شرح دونا مستواه كواد يا شرح دونا مستواه كواد وحواي مرحلة ما قبل القراءة والكتابة كتاب كي سنة واكنا مستواه كواد كتاب كي سواكنا مجيء سنة وحلها سلسلة النون والقلم لتعليم الأطفال كيفية إمساك القلم أيال لها إن شاء الله مستواhaas ayaa maanta qaadan doonaa marka hore mustawahaaniitu waxa loogu talgalay mustawahan waxa loogu talgalay 3 jir ilaa 4 jir ayaa loogu talgalay sida hadda ka hor aan soo sheegay manhajka wuxuu ka bilowdaa 3 jir iyo wixii ka sareeyay 3 jir iyo wixii ka sareeyay ayaa manhajkan loogu talgalay marka mustawaha koowaadna wuxuu ka hadlayaa marxalatu ma qabla qiraa'ati wal kitaba marxalada ka horeysa intaana canuga maxalla wax qoris iyo wax akhri intuusan bilaabin marxalada ka horeysa ayaa maxalla mustawahan ka hadlaya maxalla sida sheegay 3 jir waay 3 jir kana sida badanna wax ma bartaan sida badan wax ma bartaan guryaha ay iska joogan marka waa maxalla 3 jirkaas ayaa lagu keenay oo waxba garaneen maxalla inuu wax akhri ama wax qor iska dhaafay xitaa qalinka ma qabsan karo marka mustawahan ama marxaladan ayaa waxa lagu barayaa canugaasayto sida maxallaha qalinka loo qabsado sida qalinka loo qabto maxallaha ayaa la barayaa canuga marka hore intuusan wax aqrin wax qorin waxa la barayaa canuga sidii maxallaha qalinka uu qabsan lahaa bas ayaa la barayaa kitaabka uu ka baranayana kitaabka uu isticmaalayana waa kitaabkan waaye kitaabkan ayuu isticmaalayaa kitaabku wuxuu ka kooban yahay 4 qayb waaye يعني مال محلها يعني وحو سبرو iyo محلها iyo murabbacaad ayuu buuxinaya cunuga meel kalena محلها alifki ila alif ila ya oo kala go'san ayuu محلها ayuu buuxinaya meel kalena wuxuu hadan yani uu ku qaadanaya alifki oo dhibac ah ila iya oo dhibac ah iyo meel kale oo محلها oo asiga laga rabo inuu qoro markuu soo dhibceeyo meel kale ayaa banaan inuu محلها ويحدنا وكليس أخرى مثلا ماشي عمل أوفيرسو ماشي أنا عمل أوفيرسو مجدة ومربعات ومجدة مربعات يوم محلها سيد إنجليز كلا لها يعني سكوير يعني محلها يعني ريكتانجل يوم محلها كيوب ومجدة ها مركب ماشي أنا ملهن أي بوحنا عنقة مركب ماشي أنا وكتجي مركوب نمايو ملها أكل مجدة ها مركب وبوحنا يا وحنا وبوحنا يا كدب وحقلها محلها مجد ألف كي أو كل قوسن سيدا حتى كان جيم واي حا واي حدا أو كل قوسن فير وكل قوسن تاي كدب أيضا دمستيران واتنا أنتوا ببوحين أو كلية ماشي أنا مركز ساس أيو هو ذايا ساس أيو كوا ذايا كدب وحقلها ميل أو محلها أو ترسن وحاول ترسن وحاول ألف كي واكنا مجد ألف كي واكنا مجد ألف واكنا هوستان maxaa ku qoran maxalla dhibac soo ma jid dhibac ma aha dhibacdan ayuu cunugu buuxinaya cunuga dhibacdan ayuu buuxinaya kadib maxallahayo markuu meesha uu soo dhibceeyo oo soo marmariyo kadib kaligiisa hadan meesha laga rabaa inuu cunuga maxallaha uu ku qoro asaa qoray meesha ma jid maxalla leelenkan ayuu ku qoray alif asaas uu qoraya marka yani kitaabka marka intaas ayuu ka kooban yahay hadda waxaan galeynaa qaabkii loo isticmaal la kitaabka
qaabka cunugaanayta aad ku bar lahayd sida qalinka loo qabsado ayaa maxaa la hadda galayna u fiirso maxaa lahaa marka hore waxaa samaynaysaa cunuga waxaa dhahdaa sidaan dheh cunuga sidaan dheh sidaan ha dhaho sidaan markuu dhaho yani waxaa soo qaadanaysaa laba maxaa lahayo yani masag ayaa soo qaadanaysaa ama taakooyin ayaa soo qaadanaysaa labadan taako ayaa isdhexgelinaysaa majeedaa labadan taako ayaa isdhexgelinaysaa marka labadan taako isdhexgelisid cunuga fartiisa ayaa gelinaysaa majeedaa labadan taako ayaad gelinaysaa kadib maxaa samaynaysaa farihiis ayaad gelinaysaa cunuga labadiis faro ayaa gelinaysaa saan iyo saan gelinaysaa majeedaa fiiri majeedaa saan kadib maxaa samaynaysaa fartan kalena waa gelinaysaa u fiirso meeshaan marka fartan kalena markaa gelisa iyadana kadib qalinka meeshaan ayaad ku suraysaa majeedaa qalinka meeshaan ayaad ku suraysaa u fiirso meeshaan majeedaa qalinka meeshaan ayaad ku suraysaa qalinka majeeda meeshaan ayaa ku suraysaa saan majeeda waa kana qalinka waxaa haayo taakooyinkii ayaa cunuga u haayo majeeda marka taakooyinka maxaa loogu talgalay cunuga marar badan maxaa lahaa malagaya markaa dhahdid saa u qabo qalinka marka saa u qabo aad dhahdid cunuga iska mashquula uu ciyaaru geli karaa qalinkii marka uu iska sidayna qalinka uu ka dhacaa marka adina waxaa rabtaa inuu qalinka sida loo qabsado inaad bartid maantana marka cunugii qalinka ayaa ka dhacayo marka shaqay ku noqonaysaa maxaa loo sameeyaa marka taakooyinkan ayaa qalinka u haynayo majeeda qalinka waa kanaye ma dhacayo xitaa cunuga hadduu iska dhaafo farihii uu kala sii daayo qalinkii ma dhacayo marka waxaa fududaanayso isla markaadana inuu qabsado ayaa u fududaanaysa cunuga marka sidaan ayaa isticmaal karta insha allah qaabo kalena maxaa la way jiraan oo loo isticmaalo qaabkay ku fududaado ayaa maxaa la mari kartaa laakiin haddeertaan qaabkan ayaa baranaynaa marka sidaan majeeda fudeed waa hadda inuu qalinka u qabsado fudeed waaye marka beriyahoos sidaas ayaa ku wadaysaa asoo baashaan xirsan ka taakooyinkan xirsan hadhoodi kadib waad ka bixinaysaa taakooyinka waad ka bixi taakooyinka yani maxaa la shaqadooda waxay ahayn oo kaliya qalinkiina uu hayo qalinka hadda cunuga hadduu bartay sida qalinka loo qabto taakooyinka marka maxaa la shaqadooda way dhamaatay inaad ka saartid waaye taakooyinka ha ku sahaynin haddii kale taakadaas loo kaa raboona maalin walba taakada igeli oo ku dhihi doonaa marka maxaa la sameeyaa markuu uu qabsado qalinka aad aragtay inuu fahmay waad ka siibaysaa taakooyinka waad ka dhaafaysaa markaasaa waxaa samaynaysaa steepka labaad waxaa waaye waxaad dhehaysaa cunuga kitaabkan maxaa lahaa ayaa siinaysaa si uu u marmariyo maxaa lahaa si uu u marmariyo sawirada iyo maxaa lahaa meelaha murabbaca ayuu marmarinayaa kitaabkan asoo maxaa lahaa fartii maxaa lahaa taakooyinka ugu jiraan qalinkeeda saa u haysto ayaa cunuga maxaa lahaa waxaa leedahay meeshaa marmari waad la qabanaya marka hore waad la qabanaysaa waxaa leedahay meeshaan saa u marmari majeeda saan u marmari leedahay saas u marmarinaya maalin walba waxaa siinaysaa qayb ayaa siinaysaa maalin walba qayb ayaa ka siinaysaa insha allah marka sidaas ayuu ku wadaya maalin walba shaqo kale ma lahan asi wax kale kama rabtid maxaa lahaa waxaa soo akri iyo kaas ka soo bax iyo ma jirto wax kale ma gelinaysa cunugan shaqadiisa waxaa cunuga inuu qalinkaaniito uu ka adkaado bis qalinkan sida loo qabto waa inuu bartaa shaqo kale ma lahan marka waxaa la sameynayaa yani maxaa lahaa markii uu dhammaysto shaqadiisa yani maxaa lahaa cunugan maadaama adiga uu kula joogo waxaa la sameeyaa alifkii oo dhan ayaa u akrinaysaa sida hadda maxaa lahaa sida hadda kitaabka ku qoran mujeda wuxuu ka bilaabanaya alif ilaa ya ayuu ka bilaabanaya alif ilaa ya ayaa maxaa lahaa uu kooda hore baalka ugu horeyba alif ilaa ya uu ka bilaabanaa markii uu shaqadii oo dhibacda markuu soo dhammaysto qalanqabashadii maxaa lahaa sidii loo qabanaya markuu soo dhammaysto waxaa haddana u akrinaysaa alifkan ayaa u akrinaysaa akrin bes ayadoo xisaabtan kale jirin xisaabtan kale iyo ul iyo waxaanit iska dhaaf cunugaanit waxaa laga rabaa oo keliya qalinka inuu barto marka waa loo sii faa'iideynaa in layska dhaafa ma ahan cunuga markuu shaqadiisa dhammaysto alifkii ayaa loo akriyaa alif ilaa ya maanta dhan loogu celinaa marka maxaa faa'iide ay leedahay taas waxay faa'iide leedahay cunugii wuxuu sii baranaa sidii loo aqriyo maxaa lahaa alifkii liya sidii loo aqriyo ayuu sii fahmaya sidoo kale waxay isticmaali kartaa kaararkii hadda aan ka soo hadalnay ayay isticmaali kartaa kaararkaasayto ayagana way ku caawinayaan cunuga marka muxuu baranayaa sidii alifka loo aqriyo iyo qalinka sida loo qabto wajada loo faa'iido way marka alifkaasna waxaa loo aqrinayaa ka hor intaan maxaa dhibac intuusan gelin ama shaqadii oo qalin qabasho intuusan gelin ka hor ayaa alifkii kood hore loo aqrinayaa
kadib haddana maxaa lahaa shaqadiisii oo caadiga ah oo qalan qabashadii ayuu gelayaa kadib markuu dhammaysadana haddana alifkii ayaa loo akhrinayaa meeshaas ayaa canuga wuxuu ku baranayaa sidii qalinka loo qabsado iyo alifkii sidii loo akhriyo insha allah marka marxaladaanayto intaas ayay ka hadlaysaa kitaabkana waa kana silsilatu nuun walqalam marxalada marka maxaa lahaa waxaan dhahay 3 jirka ayaa iskale iyo 4 jirka ayaa iskale waxaan lagu barayaa canuga sidii maxaa lahaa qalinka loo qabsado iyo qaababka hadda aan soo qaadanay ayaa qalinka lagu barayaa canuga sidii maxaa lahaa loo qabsado marka marxaladaanayto meeqa bil ayaa lagu jirayaa marxaladaanayto meeqa bil ayaa lagu jirayaa meeqa bil ayaa lagu jirayaa marxaladan waxaa loogu talgalay inuu canugu ku jiro maxaa lahaa hal bil oo kaliya shahr bis hal bil oo kaliya 1 month oo kaliya 1 month ayaa loogu talgalay hal bil ayaa loogu talgalay yani ma ka badan karta hal bil haa way ka badan kartaa ilaa waxay gaari kartaa 2 bilood ayay gaari kartaa dhibaato ma lahan laakiin in laga soo yaro bil in laga yareeyo maxaa lahay suurtagal ma ahan maanta dhan inuu maxaa lahaa yani cunuga waxaa loo baahan yahay tartiib in wixii maxaa la loo bar ayaa hal mar jug laguma sii karo marka hal bil at least hal bil ayuu ku jirayaa ma laga badin karaa haa waa laga badin karaa ilaa 2 bil ayaa la gaarsiin karaa mushkilo ma lahan laakiin 2 bil ma laga badin karaa 3 bilood ama ma laga dhigi karaa may dhibacda in maal 3 bilood dhan lagu jiro suurtagal ma ahan at least waa hal bil ama 2 bilood bes hal bil ma laga yareyn karaa ma laga yareyn karo ilaa cunugii tartiib waa inuu u qaataa yani maxaa lahay casharada qalan qabashadana maxaa lahay ma fududo marka maxaa lahay marxalada marka intaas ayaa maxaa lahay ay ka hadlaysaa insha Allah waana marxalada koowaad waaye 3 jirka ayaa loogu talgalay ee qaababka maxaa lahay qalan qabashada ayaa intaas maxaa lahay ayaan ku soo koobaynaa insha Allah jazakumullahu khayr salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh